Soomaaliya waddan ku yaala geeska Afrika marin muhiim u ah dunida ee baweyne taagay 30 sano ayaa loogu yeerayay marinka bahallada iscunaya dhaca dilka argagixisada burcadnimada qaxa qaxootiga qabyaalada qoorsiga ayaa qaran ka noqday waddankii loogu yeeri jiray hoggaanka iyo hamiga Afrikaanka markii ay burburtay dawladii Soomaaliya waxaa meesha ka baxay midnimadii is-aaminaadii walaaltinimadii iyo dirisnimadii ummadnimo waxaa la isu laayay beelbeel waxaa mar qura isbedelay wajigii Soomaaliya waxaa la dhacay hantidii dawladnimo iyo tii ummadnimo waxaa qaxay qoorsi wajahay danyartii dugaalka haysatay waxaa rajabeel noqday dhalinyaradii dhulka lahayd oo kala jahaystay tahriib burcadnimo iyo tuba halaaga isku dayo badan oo lagu soo celinayay qarannimadii Soomaaliya ayay dunidu in badan isku dayday hamigaasi waa hirgalay 30 sano kadib Soomaaliya ayaa ififaala iyo isaaminaad weyn ku yeertay dunida waxaa dhismay hanaankii haddii aanan dhulkaygu dhiikuugu foldhegin haddii aanan dhulkaygu gobonimada soo dhicin Soomaali kama dhalan waxaa xoogaystay is-aaminaadii iyo walaaltinimadii bulshadii cadaawuhu isku diray waxaa kor u kacay dakhligii dalka Soomaaliya waxaa batay fahamka bulshada ee raadinta midnimo iyo helitaanka hanaan wanaagsan oo horseed u noqda dunida tartamaysa ummadii u kala hayaantay daafaha adduunka ayaa ku soo laabanaya dalkoodii ayagoo ka hirgelinaya ganacsiyo caalamiya isku tashi iyo talooyin wanaagsan Soomaaliya ayaa doorashadii saddexaad ee ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho tan iyo burburkii dalka kadib 2017 ayaa xilka madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihii dawladda ku meergaarka ahayd Mr. Farmaajo haystay kalsoonida shacabka u ooman hoggaan dalkan samata bixin kara wuxuu tudhiiba xooga saaray dhismaha qaran haybad leh iyo is-aaminaad bulsho waxa uu la dagaalamay musuqmaasuqa ku tagrifalka hantida ummadda waxaa dib loo soo celiyay hantidii qaranka ku lahaa dunida iyo dalka ee sida gaarka loo haystay waana tan dhabaha u xaartay kalsoonida dunidu ku qabtay xilligan hoggaanka dalkeena Soomaaliya waxaa dhismay ciidankii qaranka iyagoo tababare caalamiya ka helaya walaalaheen Turkiga iyo dawladaha saaxiibadeena oo nagu taageeraya dhismaha xuduudeena ciidan si loo helo waddan horumarsan loona suurin lahaa argagixisada iyo cadaawaha shisheeye ee aan doonayn nolosheena waxaa dib loo soo celiyay dhalintii dhulalka shisheeye xabsiyada kaga jirtay tan iyo burburtii dalka kadib waxaa la soo celiyay maamulka hawada dalkeena oo muddo dheer dawladaha shisheeye ay maamulayeen madaxda wasaaradda iyo hay'adda duulista iyo halwadeennada naftigooda hawsha soo wareejinta waxaa ka adkaa iyo inaan niraahno qarannimadeena waa soo ceshanay qayb ka mid ah maamulkeeda oo runtii walwal badan naga hayay oo dad badan ay raadinayeen ama ay filayeen inaan fashili doonno oo la oran doono ilaa waxaana la geliyay moratorium yaana la geliyay waqti yar yaa waxa la baraha lagu dayo aan aragno in ay hawsha serious ka yihiin waxaa dhismay guud ahaan dalkeena iyo dadkeena oo xilligan kaalin weyn ka ciyaaraya dunida horumarka ku tartamaysa xilka madaxweynenimo ee dalkeena oo ahaa 4 sano muddo xileed walba madaxweyne Farmaajo waxa uu geed dheer iyo mid gaaban u fuulay hergelinta doorasho qof iyo cod oo Soomaaliya ka dhacda markii labaad waxay ay saxiix aan wada saxiixnay in doorashada 2020 iyo 2021 ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeyay marka waxa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka danaha dawladaha diidan dhismaha dalkeena oo garab siinaya qayb dadkeena ayaa hamigaasi hor istaagtay xilligan Soomaaliya waxaa ka socota hirgelinta doorasho dadban oo lagu dooranayo madaxweynenimada dalkeena haddaba madaxweyne Farmaajo ma u qalmaa in mar kale talada dalka loo dhiibo